دقوق مهاميرا ودقم أواميركا دخاتير توي ناسيسي الله هينا دوري دماتين عبادة إستا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool Norway waxaad la socotaan in dalka Norway uu ka mid yahay wadamada xaaladda caafimaad ee degdega ah lagu soo rogay. Waxaa jira khatar weyn oo cudurka coronavirus uu ku hayo caalamka, gaar ahaan Norway. Haddaba waxaa lagama maarmaan ah in aan dadaalno inagoo raacayna fariimaha caafimaad ee dawladdu ina farayso oo ay ka mid yihiin inaan guryaha ku jirno inta xaaladan ay taagan tahay, inaan meel isugu imaan, inaan nadaafadda ku dadaalno, iyo in carruurta yaryar gacmaha ka mayrno xilli kasta. Abbaayo, aabe, aboowe iyo hooyo, haddii aad isku aragto xanuun ku shaki geliya, ka dheerow dadka kale oo kaligaa qol gooni ah deg. Haddii xaaladaada caafimaad aad u baqdo, la xiriir goobaha caafimaad si laguu baaro isla markaana laguu daweeyo. Ogow, haddii xanuunka lagaa helo maahan micnaheedu in aad khatar dhimasho wajahday ama aad ku sugan tahay. Niyadaada daji oo alla aamin, idin alle waad caafimaadiye. Waxaa laga yaabaa in xanuunka si fudud kuu qabto, laakiin qof adiga kaa qaaday uu naftiisa halis gelin karo. U tur dadka kale oo ku dadaal caafimaadkaada. Ugu dambeyntii, waxaan Allah ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo dhammaanteen. Soo gudbinta fariintan waxaa idiin sahashay Caraweelo Group, Bergen, Norway. mahadsanidin. دقوق مهاميرا ودقم أواميركا دخاتير توي ناسيسي الله هينا دوري دماتين عبادة إستا.